magaalada muqdisho aynu caawa ku bilaabaynaa guddida doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay inuu dibadhac ku yimi qorshe lagu waday in hanaanka doorashooyinka Soomaaliya uu toddobaadkan ku bilowdo. guddida ayaa 23 bishan sheegay in doorashada aqalka sare ay ku dhacayso inta u dhaxaysa 26 December iyo 6 January. warqad kale oo ay maanta soo saareen ayay misna ku sheegayaan guddidu in ay doorashada aqalka sare soo gabagabayso inta u dhaxaysa 7 ilaa 14 January. waxa ay sheegeen in madaxweynaha galmudug uga yimi codsi xagga dib u dhigisto. doorashada Soomaaliya ayaa horeba dib u dhacsaneed marka la eego xilligii 4 sano ee loo qorsheynayay iyo waliba xilli dambe oo ay madaxda maamul goboleedyadu iyo kuwa dawladda federaalku ku heshiiyeen in doorashadu ku qabsoonto. haddaba wixii horeba ka kaalay sidee imika wuxuu socdaan maxaa laga qorayaa haddaba guddida oo ay qorshahoodu yahay. waxaa khadka muqdisho ku jira gudoomiyaha guddida doorashooyinka maxamed xasan maxamed ciro. gudoomiye soo dhawow, waad ogtahay toddobaadkii horena barnaamijkan baad la hadashay caawiya caalamka. waxaad sheegtay in aad diyaargarow rasmi ah aad samayn doontaan jadwalka doorashada. marka maxaa imikana fashilmay oo halkeebay iskaga xidhmi weyda hawsha? cabdiraxmaan bidhaan waa ku salaamaya adiga iyo daawadayaashaba. horta waxba ma fashilmin jadwalka doorashadu. markii aan soo saaraynay waxa uu ku qotomay annaga diyaargarowgeenna iyo habka ugu habboon ee wax loo fulinayo ama ay doorashadu u qabsoomayso. saad ogtahay hanaanka doorashadu sidiisaba wuxuu ku yimi heshiis wadaag oo u dhaxeeyey madaxdii maamul goboleedyada iyo dowladdii federaalka. marka xubin ka mida maamul goboleedyada madaxdooda haddii uu codsi ka yimaado, codsiguna uu quseynayay arrimaha doorashada, markii ay guddigu ka doodeen waxay u arkeen inay tahay suurtagalnimadaas oo ay usii caddeeyeen inay tahay wax doorashada iyo dalkaba muhiim u ah. marka sida un lagu qaatay go-aanka waa sidaas. doorashaduna kolley dee inay dhacayso unbaa muhiima. dib u dhac kasta ama mid farsamo ama mid codsi ha ku yimaado. waan gartay gudoomiye. haddaynu taa hore uga soconno, waad ogtahay dhibaatooyin kale iska jira. doorashada kolba dib bay u dhacaysaa, maamul goboleedyada dhib baa ka taagan. waad ogtahay waxaa hiiraan ka taagan ama beledweyne, waad ogtahay waxaa geda ka taagan. marka gudoomiye imika ma noo sheegi karaysaa doorashadani magaalooyinkeebay ka dhacaysaa rasmi ah oo lagu talageli karaya oo si rasmi ah aad odhanaysaa toddobaadkaa soo socda way uga dhacaysaa? horta waxa soo horeeya waa doorashada aqalka sare. doorashada aqalka sarena waxay ka dhacaysaa xarumaha caasimadaha u ah maamul goboleedyada. waa sida sharcigu ahaa ama heshiisku ahaa. doorashada aqalka hoose iyadu waxay ka dhacaysaa 10kii goobood ee loo asteeyey ee 5 maamul goboleed ka tirsanaa iyo magaalada muqdisho oo kuraasta gobolada waqooyi iyo banaadirigu ay taalay. marka taasi wax isbedelay kumaysan imaan. waan gartay. waa si fiican baad noogu sharaxday taa gudoomiye. waan ognahay 4 sano ka hor doorasho iyaduna dhacaysa dadban oo kale oo iyada laftigeedu dhaliilays ka lahayd. laakiin imika waxaad moodaa in doorashadii la leeyahay miisaaniyaddii lama hayo oo waan maqlaynay wasiirka maaliyadda oo ka hadlaya miisaaniyaddii doorashadaba in wax yaroon laga hayo caalamka laga sugayo. waxaan arkaynaa inuu khilaaf siyaasadeed jiro oo fara badan. marka gudoomiye ma la odhan karaa adiga guddidaada gaadhi bilaa taayiraaba laydiin dhiibay oo aan dhanna u socon? horta waxaa lagu heshiis yahay oo soomaalida oo dhani ay heshiis ku tahay waa inay doorasho dhacdo. hadduusan xitaa gaadhigu taayira lahayn duruufta iyo waktigaa horta u yeelaya. waayo 4 sano ee dowladdu waktigeedii waa dhow yahay. dalku inuu doorasho galana waa waajib. habkii doorashada lagu gelayayna waa lagu heshiiyey. muhiimaddu marka waxay tahay wixii lagu heshiiyey in la fuliyo, waana sida ay wax ku dhaqaaqayaan. annaga ka guddi ahaana wixii lagu heshiiyey in la fuliyo ayay tahay waajibaadkana saaran. dhinaca miisaaniyadda aad ka hadashay, miisaaniyadda waxyaabaha ugu badan meeshay ka imaaneysaa waa horta waa waajibaad saaran dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa jira oo kale qoondooyin iyaguna beesha caalamku ay u qorsheeyeen. marka dhinaca miisaaniyadda inuu dib u dhac badan ay ku keenayso doorashada ma filayo. in wixii baahiyaha doorasho degdeg loogu baahan yahay in la heli karo lana hayo
ayaan rajaynayaa. waan gartay gudoomiye waxaan kusoo gabagabeynaya imika adu gudoomiyihii baa tahay gudidii dhexdhexaada baa tahay maxaa kuu diidaya inaad la hadasho musharaxiintii mucaaridka ama oo ururka ay samaysteen ama aad goboladan kale maamul goboleedadan kale habkiina ka soo horjeeday magacaabistiina ka soo horjeeda aad wada hadal la furto waayo adigiiba dhexdhexaada oo dee doorashadii raba inaad u qabato dhinacyada loolamaya taasina oo aad gacanta u fidiso u haadiso maxaa taa kuu diidaya soo looma arkayo nin dawladda ku dhow oo awaamirta dawladda ku shaqeynaya haddii kale cabdiraxmaan horta aan ku saxo hal meel aan kaa saxo maamul goboleedyadu ma diidana guddi oo meel ay ku diideen dee adiguna ma garanaysid anna ma garanayo maamul goboleedyadu dhammaan guddiyada xubnay u magacowdeen qaarna way joogaan qaarna weli may imaan laakiin guddigani waa un guddi qaran annagoo dhanna waxaan u nahay dhex maamul goboleed iyo ummadda Soomaaliyeed taasi waa taas middan murashaxiinta horta murashaxiintu ama cid kasta oo raadinaysa jago xuquuq sharci bay leedahay oo ah inay si xaqa oo xora u raadsato jagada siyaasadda ee ay rabto annaguna taas in aan u fududayno oo waxay xaq u leedahay aan ugu fududayno waa waajibna saaran gaadhitaankooda qaar badan oo ka mid anigu waan gaadhay shakhsi ahaan baan ula xiriiray cid kasta oo iyaga ka mid ah oo na soo xiriirisana waan u furannahay guddi ahaan oo qaar ka midii way nala soo xiriireen marka horta kama marnin oo ma nihin niman meel isku xidhay oo dowladna gaar ugu xidhan sidaa haddaba go-aankaas iyo codsigaa madaxweynaha maamul goboleedka uu noo soo jeediyey ka guddi ahaan aan u qaadanay oo aanan cid kale uga talagelin unbaana kuu xaqiijinaysa in aan go-aanada anagu leenahay wixii guddigu ku taliyana un ay tahay wax aan u aragnay in ay dadka iyo danta ummadda tahay. aad baan kuugu mahad celinayaa maxamed xasan maxamed ciro gudoomiyaha guddida doorashada federaalka ah ee Soomaaliya oo Muqdisho kaga soo